Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So dhawaada dhamaan asxaabteyda. This is Abdullah Academy. Our class today is all about our lesson today is all about conversation. As you know that waxaa soo socday casharadeen ahaa oo ku saabsanaa wada sheekeysiga. Marka wada sheekeysigana insha Allah sidoo kaleeto wuxuu aadi doonaa playlist-ka. Marka ka arday ahaan waxaan ka codsanaynaa playlist-ka aad aado kadib aad fiiriso xiisadaha sida sequences ay isku soo xigaan kadib aad la socotid. Then if you are new to the channel, please subscribe it. If you are there before, can you share and comment? Today, as I said before, conversation can wuxuu ku saabsan yahay restaurant. Conversation about at the restaurant. Wada sheekeysigani inta badan wuxuu ka dhici doonaa maqaayad dhexdeeda ayuu ka dhici doonaa wuxuuna u dhexeeyaa labadaas qof oo ah the waiter and the customer. kabalyerigi wuxuu u dhexeyn doonaa yani qofka macmiilka ayuu dhexeyn doonaa. Marka isla socod wanaagsan. Restaurant waxaa la yiraahdaa maqaayo ayaa la yiraahdaa restaurant. So waiter, customer and waiter, welcome dear customer, how can I help you please? Welcome buu yiri soo dhawow dear customer, macmiilkana soo dhawow, how can I help you please? Seen kuga hawiya fadlan. Because if I use the word welcome dear customer, walaalkaa soo dhawow يعني meeshaas marka waxaa jirto wax la yiraahdo polite language. This polite language shows that there is respect in that restaurant. In meeshaas xismad jirto qofkii maqaan imaado si fiican loo soo dhaweynayo oo la xishmeynayo marka si ay marka macmiilka ama dadka macmiisha ay imaadaan oo ay waqtigooda ku qaataan. So how can I help you please? Sideen kuga xawiya fadlan. يعني haddii qofku ku yiraahdo please how can I help you, waxaad dareemi kartaa qofkaas inuu zaid ku xishmeeyo. So how can I help you please? Sideen kuga xawiya fadlan. Customer macmiilku wuxuu yiri thanks aad baad u mahadsantahay because hadii wax wanaagsan ama qaab wanaagsan lagala hor imaaday adina waa inaad u jawaabtaa qaab sidoo kale wanaagsan. Thanks waad mahadsantahay. Is there lunch please? Fadlan heli karaa buu yiri qadam heli karaa lunch waa qabo. Yes, is there lunch please? fadlan heli karaa buu yiri qadam heli karaa oo maqaaxida qadam laga heli karaa maanta waa gaajaysan hawiye. Okay, waiterkii markaa wuxuu ugu jawaabay yes ha buu yiri what can I give you? maxaan ku siiyaa? waa taalay qad way jirtaa maxaan ku siiyaa? aad u baahantahay qadam macnay u baahantahay because maqaayaha waxaa lagu kariyo cunooyin nooc kala duwan. The most favorite food is lagu kariyaa marka cuntada rabto adaa dooqanay. Marka wuxuu yiri marka cuntada macnaan ku siiyaa buu yiri. Customer macmiilkii marka wuxuu yiri what did you have? maxaad haysaa? What did you have? maxaad haysaa? I need waxaan u baahanahay buu yiri a hot dog. ayaan u baahanahay hot dog waxaa la yiraahdaa suqaar ayaan u baahanahay buu yiri. Spaghetti pasta ayaan u baahanahay sidoo kale. Anda iyo wuxuu yiri a glass of juice. Koob cabitaan oo macaan badan ayaan u baahanahay. Okay, markaas wuu yiri waiterkii wuxuu yiri kabalyerigi wuxuu yiri marka yes ready aad baad u gaabnahay. What else maxaa kale do I bring you aan ku keenay? Customer waxa weeye waa macmiilkii waa qof macmiilka meesha imaanayo cuntada dalbanaya. Customer markii no maya buu yiri only that please clear taas ayaan u baahanahay buu. Only that please clear fadlan taas kaliya ayaan u baahanahay buu. Waiter marka yani qofkii kabalyerigi wuxuu yiri okay haga ready diyaar baan hayo. Okay haga ready diyaar baan hayo. Markaas aad ku arkaysay wada sheekeysiga waxaan dhahnay wuxuu u dhaxeeyaa kabalyeri iyo customerkiisi. waxayna sheekada ka dhacday restaurant maqaayad dhexdeeda. Marka fadlan channelka dadka cusub tahay you can subscribe if you are there. Can you go to the playlist and follow up the notes that I have already posted.